Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Asxaabta waa salaam meel kastoo dunida tacalada ku joogtaan. Waa Cayuush Cabdiqaadir YouTube channelka aad taaganaysid inuu Cayuush Cooking and Beauty. Maanta waxaa inoo wada casiir qaro. Insha Allah waa arki doontiin sidaa u sameeyo iyo waxyaalaha aan ka sameeyo intaba. Marka hore waxaan idin leeyahay asxaabay soo dhawaada gacmo furan qalbi furan. Channelkiina waaye. Channelka hadduu subscribe ku yahay subscribe saaro gambarada yar furo si uu ku soo gaaro video walba aan soo geliyo. Wixii ra'ayi ama dhiirigelin in commentiga hoose ay ugu reebi kartaan insha Allah. Saa u jeedin baqaraha dhexda kala baxaya insha Allah kadib ma arki doontiin. waa soo dhameeyay qolofka muhiimada aan ka leeyahay waxay tahay inaan waxaan rabaa jilay kariyo aan ku shubo kadibna talaajada aan gashto intaasna idin lama wadaagin sorry laakiin muhiimada waxay tahay casiirka sidaa u sameysanayo inaan idin la wadaago. saa u jeedinbo baaquliga ku soo diyaarsaday baaquli kale oo faadiya soo qaatay waxaan rabaa miraha dhexda ku jira madowga iyo cadaanka intaba inaan iska reebo insha Allah waa soo dhameynaa kadib isku soo laabanayna. weli waa wadaa ma dhawa hawsha saas waxaa u yeelayaa minaa ma rabo inaan qaraha heeto miiro saas darteeda hadaarkaad waa miiro kartaa laakiin ani inaan miiro ma rabo. waa kasoo bixbixiyay waa soo dhamaystay dhacaankii riiskan waxaan soo qaatay caano waa miraya kadibna talaajada gashanaa weliba fareesarka muddo saacadii bar camal ku soo heenaya kadib asagoo qabow baraf aan rabaa inaan shiido insha Allah. saa u jeedin waa kana soo bixiyay 1:20 camal uu igu jiray weli waxoogaa hadda banaanka sii yaalay baaquliga yar waxaa igu jira sokor oo 4 qaanda ka isticmaali doono malab oo 2 qaanda iyo 2 qaando jilay faroolo waa kana nooca isticmaalay iyo baraf zabadi had galaaska qalaatada soo qaatay inta u baahnaa ka shubanaya qaraha inta kalena fareesarka isaga celina insha Allah. sokorta 4 qaanda ku darsanaya waa qaandada weyn ee cuntada lagu cuno sidoo kale malabka 2 qaanda asna zabadiga halka xabad inaan ku daraya hadda waxaa qasaya jilaygi hadaarto ku darsan kartaa hadaarto iska dhaaf kartaa quruxna wuu kaaga dhigayaa loonka mida kale carafna wuu ku siinayaa cabitaanka ama casiirka markaa caawisa waxaan ku dhahay
caraf aan la sheegi karin kusoo baxaa. saa u jeedin bakeeri yaroo haaf yaroo biyo ah soo qandiciye 2 qaando oo jiliga hadda qasaya. wax biyo kale ma ku daraaye intaan kaliya isku shiidaa insha Allah. saa u jeedin hadda waa shiitaanka bilaabay. galaaska geeskana malabka iiga dhawada qaata u soo qaata. Hadda wax kale biyo ma ku darin. intii yareeda jiliga ah soo aadsiiseen waa xaway jawaadiga wax kale aan ku dara ma lahan. saa u jeedin waa shiiday diyaar waa wax u dhiman ma lahan. garaafaha ku shubanayna. miraha daad waxa u bixinayay si aan u shiidin aan u miirin darteeda. hadaa rabtid aad waa miirin kartaa miraha hadda inaad ku shiidatid aad rabtid. waa kan casiirka saan u soo baxa maasha Allah tabaarakallah. saa u jeedinbo lagama sheekeyn karo. cuniga la siiyo maasha Allah tabaarakallah u jeclaysana. adigu weyn xitaa markuu oon ku hayo kale markaa cabtido kale kaaliska aragan ku dhahay maasha Allah. haddii aad jeceshahay ku darsan kartaa zabaadiga. haddii aad jeclayn waa ka dhaafi kartaa. jooskada iska leh. aan saraxatan waa ka helay maasha Allah. ilmihiina ugu faa'iideeya nasadiina. barafaa kusoo darsada hadda. hadaatina qaboob uu ahaa maxay ahayd qarihi laakiin barafkan waa kusii darsada macaanu kasii qaada maano. wax walbo la cabayo ama biyaha ama casiirka waxay ku macayeen mar walba inuu qaboob ahaado. dadaa laakiin jecleen qaboobka way iska dhaafi karaan. sida ilmahoo kale in qaboobka la siiyo ma fiicna ayagana. marka waxaad leeyahay asxaabiga kusoo dhawaada cabitaankan macaanka badan quruxda badan. saraxatan ani waa ka helay. haddii aad ka heshay fiidiyowga ilaa bilow ilaa dhamaad haddaa nala joogtana like-tan oo saar. wixii fikrada mar ayna commentigoosa igu reebi kartaa. waa Ayuush Cabdiqaadir oo idin leh assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.